hal sano iyo bar kadib isbedelada iyo xidhiidhada ku soo kordhay siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland. xidhiidhkii diblomaasiyadeed ee warbaahinta caalamku hal mar Somaliland ku soo wada jeediyay. soo ifbixii tartankii dekedaha geeska iyo ka mid noqoshada Somaliland. bilowgii halabuuridda caqabado ka dhana xidhiidhada diblomaasiyadeed iyo maalgashiga ee Somaliland iyo doorka ay ku leeyihiin dalalka deriska la ah Somaliland qaarkood. inkastoo xurguf siyaasadeed oo kala tagaadhay ka dhaxayso Somaliland iyo Soomaaliya, inkastoo Soomaaliya xasilin raadinteedu weli taagan tahay, inkastoo Jabuuti ku isiman tahay garwadeenadii raadinta midnimadii bariiqatay ee Somaliland iyo Soomaaliya, haddaba maxay tahay sababta ay u aloosan tahay xilligan jawiyada mucaaradeed ee ka dhanka tallaabo kastoo Somaliland u qaado dhinaca xidhiidhka caalamka iyo kasbashada dunida? tani waa mid isweydiinteedu u baahan tahay inaynu ka shidaal qaadanno. xidhiidhada iyo iskaashiga saaxiibo cusub oo Somaliland la yeelato dalalka dunida, dareennada iyo diidmooyinka ka dhanka ahi waa kuwo ka duwan maanta jalaafooyinkii diblomaasiyadeed ee hore sida joogtada ah. Somaliland madaxbannaanideeda ay la hortaagnaayeen dalalka deriska la ah qaarkood. aynu ku furre bilowgii tartanka dekedaha geesku wuxuu soo shaacbaxay dhammaadkii sannadii 2014, waana tandaha ka fayday kalana saartay dalalka deriska la ah Somaliland, kuwa aan ka raallida ahayn in Somaliland ka go'do Soomaaliya inteeda kale. sidoo kale in Somaliland ka qayb noqoto tartanka dekedaha geeska iyo kuwa danaynaya in Somaliland hesho maalgashiga dunida iskuna xidho Afrika badideeda. intaynan taasi gelin aan ku horreyno doorka uu ku leeyahay heerka xidhiidhka curdinka ah ee Somaliland iyo dalka isutaga Imaaraadka Carabta. xidhiidhka Somaliland iyo dowladda Imaaraadka Carabta waa mid curdin ah, mana jirin xidhiidh siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo ay la lahaayeen labada dal marka laga reebo taageero samafal oo ay ka fulin jireen Somaliland qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ee Imaaraadku deegaana ka mid ah. markii u horeysay ee cilaaqaad dhex maro labada dhinac waxay ahayd 2008 oo madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin uu booqday waddanka isutaga Imaaraadka Carabta. walow aan xidhiidhkaasi wakhtigaasi sii xoogaysan kuna koobnaa caawimooyin dhinaca biyaha iyo caafimaadka ah oon tiganayn. taasi waxaa xigay madaxweynaha haatan talada haya Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo sanadihii ilaa 2011 booqashooyin rasmi ah ku tegay Imaaraadka Carabta, waxaana bilowday xidhiidhada Somaliland iyo Imaaraadka Carabta oo marba marka ka dambeeya labada dhinac sii xoojinayeen. Somaliland iyo Imaaraadka Carabta waxa xidhiidhkooda sabab u ahaa tartanka kala dhaxeeya Turkiga. dowladda Imaaraadka Carabtu waxay tartan dhinaca dhaqaalaha kula jirtaa Turkiga. dowladda Turkiga ku guuleysatay inay gacanta ku dhigto qaar ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha ee Muqdisho sida dekada iyo madaarka. waxaa taasi u raaca Turkigu saameynta siyaasadeed ee uu ku yeeshay dalka Soomaaliya. Imaaraadka oo dareensan xidhiidhka dhaqaale iyo midka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya Turkigu ka unkay ayaa u soo janjeersamay dhinaca Somaliland. fursadaasi oo Somaliland dhinaceeda sahashay una aragtay danta dalka iyo horumarkiisa, maadaama dalka Turkigu si gaar ah Soomaaliya u gacansiiyo Somaliland aanu soo jaleecin. tartankaasi ayaa Somaliland ku dhac iyo ku dhiirasho kaga qayb noqotay kuna martigelisay Imaaraadka. Somaliland iyo Soomaaliya waxa iyagana ka dhaxeeya tartan dhinaca siyaasadda, waxaana ay Somaliland fursad muhiim ah u aragtay siyaasadda Imaaraadka Carabta ee ay u egtahay inay midayso siyaasadda dhaqaale ee ka alowsan geeska Afrika. xidhiidhka Somaliland iyo Imaaraadka Carabtu waxa uu ku qotomaa ujeedooyin cad oo labada dhinacba danaynayaan. Somaliland waxay muddo raadinaysay dal dhaqaale xooggan leh oo ay ku qancin karto inay iska kaashadaan ka faa'iidaysiga kheyraadkeeda dabiiciga iyo maalgashiga. Imaaraadkuna waxa uu Somaliland u arkaa bogcad dihin isla markaana
marin muhiim u ah xidhiidhka dhaqaale ee imaaraadku ka raadinayo wadamada geeska Afrika, gaar ahaan kuwa aan dekedaha lahayn sida Itoobiya, Suudaanta Koonfureed iyo Uganda. Isweydiinta labada dhinac waxa ay sababtay in Somaliland safaarad ku yeelato dalka isutaga Imaaraadka Carabta oo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo u magacaabo safiir Baasha Cawil, walow mucaaradka Somaliland oo siyaasadoodu tahay ku jiqsiiye ka eegista dhinaca tartanka xisbiyada ay magacaabistaasi safiir Baasha siyaabo kala duwan ugu eedeeyeen madaxweynaha. haddana eedeymahaasi waxa meesha ka saaray suurtagelinta mas'uulkii madaxweynuhu u igmaday safaaradda Imaaraadku hirgeliyay tallaabooyin aan hore Somaliland u qaadin dhinaca wadamada Khaliijul Carab, waxaana abuurmay xidhiidh diblomaasiyadeed iyo mid iskaashi oo laba dhinac ah Imaaraadka iyo Somaliland, kaasi oo sababay in dhaqdhaqaaqyada iyo heshiisyada siyaasadda iyo dhaqaalaha xafiiska Imaaraadku Somaliland ku leeyahay uu indhaha warbaahinta caalamka ku soo jeediyo Somaliland. sidoo kale uu sababay in Somaliland markii ugu horeysay taariikhda xidhiidh iyo heshiisyo ka madax bannaan Soomaaliya dalkii la isku odhan jiray qaran ahaan la gasho dowladda isutaga Imaaraadka. dadaalada tacabka iyo suurtagelinta in Somaliland 26 sano kadib ka mid noqoto wadamada dunida u kala tartamayso oo ay sahashay jiritaanka safaaradda Somaliland muddada sanad iyo badhka ku siman ee ka soo wareegtay waqtigii uu madaxweynaha Somaliland u magacaabay safiirka Somaliland u fadhiya wadanka isku taga Imaaraadka Carabta. bal marka hore intaynan eegin aan dhabahaan u darisno sababaha Soomaaliya iyo Djibouti isku aragtida uga yihiin xidhiidhka diblomaasiyadeed iyo maalgashi ee Somaliland la yeelatay dawladda isku taga Imaaraadka Carabta. taasi ka hor waa xaqiiq biyo kama dhibcaan ah oo fursadda berbera hesha waxay muddo sanado aan ka badnayn 4-3 sano gudahood noqon doonta jawharadda geeska Afrika, iyadoo ka hormari doonta dekedaha dhigeeda ah ee ku dhawaad 20 sano dunidu maalgelinaysay sida dekeda Djibouti. waxaana taas sabab u ah berbera marlaytoba lama mid aha dekedaha Muqdisho iyo Djibouti oo iyagu ah dekedaha nooca loo yaqaano artificial ports sida ay hore u sheegeen dadka cilmiga u leh culumta badaha. waa artificial dekedaha khaliijka laga sameeyay maxay iyo tan maxay Djibouti tan xamar laga sameeyay waxaas waa artificial, tan waa natural ilaahay samaystay bay haysaa. hadalhaynta arrimaha Somaliland diidmo iyo doonis taageero iyo lidku ahaansho intuba waa kuwa la kowsaday xidhiidhka Imaaraadka iyo Somaliland. dalalka geeskuna isku aragti kama aha. dalka Itoobiya maalgashiga dekeda berbera si weyn ayuu taageero buuxda isula berber taagay. sida aynu ka warqabno dunidu isma calmatee danta hoggaan u ah. tan ayaa ka dhigan waxa taageerada Itoobiya ee maalgashiga Somaliland sal u ah. Itoobiya waa suuqyada ugu waaweyn ee bariga Afrika ku yaala ee laga quudin doono marsada berbera. sidoo kale waxay muhiim ugu arkaan si badeecadaha dekeda berbera uga soo degaya ula mid noqdaan qiimaha ay ugu yimaadaan kuwa uga soo dega dalka Djibouti, taasi oo ku iman karta kaliya in maraakiibta bariga Afrika badeecadaha u socda berbera ka soo dejinaysa ee inshooranka caalamka ku jira ammaankooda ugu soo aamini karaan imaanshaha berbera. ilaalinta ammaanka dhinaca badda ee Djiboutina waa kan ku tiirsan saldhigyada militari ee dalalka dunidu ay ku leeyihiin, waana sababta aan Itoobiya wax mushaakil ah ugu arag saldhigga militari ee berbera Imaaraadku ku yeelan doono. haddaba dowladda Djibouti walaaca marsada rabbaaniga ee berbera maangelinteeda ay ka qabto dhinacana uma laha wax mashaakil ah, hase ahaatee waxay abuuri doontaa tartan labada dekedood ah oo ka mid ah tartanada dunidu ku wada jirto. danaha gobolka laga leeyahay ayaa ku fadhiya muhiimadda ay u leedahay siyaasadda geopolitical oo ku dhaca guud ahaanba mandaqada geeska Afrika. sidaasi darteed kasakoo berbera isku xidhka ganacsiga u kala goosha Yurub iyo Asia
ee kanaalka Suez iyo rajada quudinta bariga Afrika. haddana berbera waxay dhinacan kala dhacdaa duusha marinbiyoodka baabal mandabka kaasoo ay saddex goosood u wadaagaan gudahana kaga sii jiraan wadamada Djibouti, Yemen iyo Eritrea. dahma saarna oo waxaa jira walaac kale oo tartankaasi sal u yahay kaasoo ku wajahan doorka berbera ka ciyaari doonto kaalinta ay ku leedahay gobolkan oo keeni doona saameyn xoogan oo dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda ah. sidoo kale waxa taasi ka sii xoog badan oo imanaysa haddii saldhiggaasi military berbera ka hilgaro in wadamo kale oo tiro badani ay Somaliland ka dalban doonaan saldhigyo, taasi oo iyana saameynteeda siyaasadeed ee geeska iyo mid taageero caalami ahba abuuri doonta. waxaa kaloo iyana cad inay iman doonto Somaliland oo siyaasadda gobolka wax laga weydiiyo, taasi oo iyana dhankeeda caqabad kale ku noqon doonta cid kasta oo qadiyadda madax bannaanida Somaliland aan ogolayn. isbarbardhigga arrimaha ku soo fool kala geeska iyo kaalinta Somaliland ka qaadanayso ayaa sababay in si toos iyo si dadbanba dalalka dariska Soomaaliya kow ka tahay u soo farageliyaan dhinaca Djibouti arrimaha saldhigga Imaaraadka Carabta ee berbera. waxaa soo baxaya tuhunno dowladda Djibouti la xidhiidhinaya ka dhanaanshaha saldhiggaasi. tuhunadaasi walow aan Somaliland ka hadal haddana soo ifbaxooda ayaa la kowsaday safarkii dhowaan madaxweynaha Djibouti Geelle uu ku tegay dalka Soomaaliya kaasoo ka qayb galay caleemasaarkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xogahaasi ka hor iyadoo hore Soomaaliya si aan gabasho lahayn dowladda isu tagay Imaaraadka Carabta ugu weerartay saldhigga berbera, Somaliland ka siisay ayna ku eedeeyeen in dowladda Imaaraadku si toos ah Somaliland u gacansiinayso isla markaana ay weeqayso rajadii raadinta midnimadii Soomaaliya ee 1991 halowday. hadalkaasi oo warbaahinta caalamiga iyo tan maxalliga ah ka sheegay hanti dhowraha guud ee dowladda federaalka. sidoo kale tuhunada ku xeeran safarkii madaxweynaha Djibouti Geelle uu ku tegay magaalada Muqdisho ayaa ah in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu dhigiisa Soomaaliya Farmaajo kula fikir ahaa inuu safarkiisa u horeeyo ku tago dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya kana dalbado Sacuudigu inuu dhexdhexaadiyo Soomaaliya iyo Imaaraadka oo xidhiidhkoodu weydoobay xilligii xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud. dhexdhexaadintaasi oo Sacuudigu Imaaraadka iyo Soomaaliya ku dhexdhexaadinayo sidii Imaaraadku u joojin lahaa saldhigga military ee berbera. waxaana codsiga madaxweynaha Soomaaliya ula tegay Sacuudiga si weyn wax uga qoray warbaahinta Sacuudiga kuwooda ugu waaweyn oo ay ka mid tahay majalada Riyadh Post iyo qaar ka mid ah warbaahinta caalamka. dhinaca baratanka dekedaha berbera iyo Djibouti ama Somaliland iyo Djibouti. kolka aynu ka nimaadno Djibouti aad ayay muhiim ugu tahay hirgelinta saldhiggaasi military ee dowladda isu tagay Imaaraadka Carabta. marka aynu ka eegno baahida wada ilaalinta ammaanka xeebaha labada dal oo hore marar badan walaac Djibouti uga qabtay ilaalinta iyo sugidda ammaanka xeebta dhererkeedu ka badan yahay 850 kiiloomitir ee Somaliland, taasi oo maanta Somaliland suurtagelinta saldhiggaasi baahida ugu horeysa ee uu ka dabooli doonaa dhinaca ammaanka ay tahay gacansiinta iyo taageero u helidda Somaliland ee dhisidda ciidamo awood u leh oo kafaalo qaata ilaalinta xeebaha iyo biyaha baddaba. walow shucuubta dalalka Soomaaliya iyo Djibouti horeyso iyo dambaysaba midnaba aanay wax mucaarada kala hor iman gudo iyo dibadba labadaba arrimaha saldhigyada dalalkaasi iyo heshiisyada maalgashi ee dunida la gala. haddana ka mucaaradida dalka dibaddiisa khaasatan magaalada London ee gaar ahaan ka mid ah qurba-joogta Somaliland iyo mucaaradka qaarkood oo Somaliland ugub ku ah. haddana dadka qaar ayaa qaba in dhowrka boqol ee markii u horeysay taariikhda arrimo ka dhan ah Somaliland uga muuqdaharaaday dalka dibaddiisa inaanay ka faramadnayn faragelin iyo abaabulid dhinacyada dalalka dariska la ah Somaliland.
diidmada iyo iskudayga hor istaaga Soomaaliya ee maalgashiga iyo xiriirka siyaasadeed ee Somaliland iyo Imaaraadka waxa sal isaguna u ah oo xilligan u muuqda in dunidu danaha ay ka kala yeelan doonto Somaliland iyo istiraatiijiyadda hawada iyo badeeduba ay sababi karto